soo dhawaada xilli wanaagsan. Waxaan maantana ka hadlaynaa laba macdan oo mid walbaba gooni aan qaar uga taabanay, laakiin maanta farqiga ka dhexeeya iyo bal wixii ay qayb wadaagaan ayaanu ka hadli doonaa. Labadan macdan magacooda waxaa la kala yiraahdaa amethyst iyo aquamarine. Labada amethyst iyo aquamarine marka aan maanta sharaxayno waxaanu ogaanaynaa farqiga iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya. Waxay sahan u noqonayaan macdanaha kale ee aanu shaqadooda hayno ama aanu xogtooda gudbintooda hayno. Mar walba oo laba la isu barbar dhigo waxaa halkaa ka soo baxaya farqiyaadka u dhexeeya. Sidoo kale dadku waxay jaangooyin helayaan dhagaxa ay raadin karaan iyo kan xogaar aan helistiisu badnayn ayaa halkaa ka soo muuqanaya. Marka hadda iyo ana isla aadno bal macdanta aanu ka hadlayno. Dhagaxa la yiraahdo amethyst waxa weeye waa midabka boorbaliga ah ee gaduudka xiga buu caan ku yahay. Dhagaxa kalena midabka wuxuu caan ku yahay aquamarine-kuna wuxuu caan ku yahay buluug, midabka buluugga la yiraahdo. Labada dhagax amethyst wuxuu ka tirsan yahay dhagxaanta bahda quartz ayuu xigaa. Waana bah aad u badan oo tiro badan laga heli karo. Aquamarine-kuna wuxuu xigaa bahda beryl, waa dhagax si naadir loogu helo. Taasi marka iyaduna waa farqi kale oo waxay tilmaamaysaa inay labada dhagaxba intay soo raaceen haddana midba meel aaday. Midkaanna bah buu ku biiray, midkaanna bah buu ku biiray. Halkaa marka waxaa ka baxay wada socodkoodii hore oo magacaan isu keenay. Waxay kala aadeen laba meel. Waxaan marka aadaynaa farqiyaadka kale u dhexeeya maxaa ka mid ah. Amethyst-ga marka aanu joogno, amethyst waa dhagax sida aan hore u sheegnay bahda quartz ka tirsan. Haddana marka wuu ka duwan yahay oo wuxuu noqonayaa asagu dhagax ka tiro badan, marar badan la heli karo, meelo badanna laga heli karo caalamka iyo dhulka. Aquamarine-ku wuxuu noqonayaa asagu marka dhagax bahda naadiriska ka tirsan. Inta badanna aan la helayn buu asagu halkaas aquamarine-kuna naga aadi doonaa. Laakiin amethyst wuxuu inoo noqday dhagax badan oo la heli karo, raadintuna ay sahlan tahay. Halkaa marka midna waxoogaa buu sahlanaaday, midna xoogaa buu adkaaday. Qofka marka macdan raadiyaha wuxuu ogaanayaa haddaa macdan raadinaysa yaa kuu dhow inaad heshid. Amethyst baa kuu dhow inaad heshid. Aquamarine meesha uu naadir ka yahay. Marka labada dhagax halkaa markaanu joogno amethyst aad deertaan dhagaxana halkaan sawirkaan aquamarine baa iska leh. Halkaan hadda maraya oo caan ku ah sida aan horeba u sheegnay oo buluug u soo sheegnay. Amethyst-guna wuxuu ahaa dhagaxii kale oo boorbali gaduudka ahaa. Qaacidada marka halkaa waxaynu ka baxday inaanu labada dhagax kii degdeg loo heli karo helo. Haddii aad ogaatid shayga aad degdeg u heli kartid waa mar aad jaangooyintaada gaari kartid oo aad qiimeynta aad halkaa kaga heli kartid xog badan. Waxyaalaha kale oo u dhexeeya farqiyaadka waxaa ka mid ah dhagaxdaani hardness-ka ayagana way ku kala duwan yihiin oo aad bay ugu kala duwan yihiin. Sidoo kale qiimaha waxa u dhexeeya amethyst marar badanna xoogaa raqiis ama dhexdhexaad buu joogaa lacagtiisu. Lacag aad u sarreysa ma ahan asagoo haddana dhagax qurux badan ah. Aquamarine-ka waa dhagax inta badan qaaliya oo ka duwan dhagaxan. Halkaa marka maxaad ka fahantay inay farqi u dhexeyn karo laba dhagax oo dhulka ku wada jira. Helistooda iyo qiimahooda iyo awoodoodu ay kala bedelaan karto. Laakiin labaduba waa laba dhagax oo la heli karo, aad loo heli karo ciddii ku dadaasha. Halkaa markaan uga nimaano waxaan aadaynaa qaybteennii kale bal dhagaxdan iyo midowga kasta xogihiisa gaarka aanu ku sii faaqidaynay
markaan mid mid ayaan xogta u dabageli doonaa. Amethyst wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaano silicon oxide. midabkan uu ifayana waxaa siiya ironis ama biro sida loo yaqaano ku jira ama meelihii uu ku noolaa iyo shucaaca dabiiciga ayaa midabkan siiya. sidaas ayuuna kalarkan halkaa ka muuqda ee aad marar badan ku aragteen ama aad hadda ku arki doontaan ku yeesha dhagaxan wadano badan oo dhowr ah oo Brazil ay ka mid tahay oo Ruushku ka mid yahay oo kasii tiro badan ayaa laga helaa. Soomaaliyana wadanada laga helo ayay ka mid tahay. adigu xataa waad heli kartaa haddaad dadaal ku samaysid oo Ilaahay uu ku siin karaa. laakiin looguma helo wax walba iska soco. waxaa lagu helaa aqoon, qalab iyo meel ku habboon iyo dadaal iyo waqti iyo juhdi aad u culus oo la bixiyo ayaa wax lagu hantaa. laguma hanto waan hawl yaraystay way iska hagaagi doontaa. inta markaan taa ka imaado hadda Africa oo kale marka aan joogno waxaa aad looga helaa Madagascar iyo Zambia oo labaduba Africa ah. Madagascar wadanada waxay ka mid tahay xeebaha waa jasiirad badda taala. Soomaaliyana jiha ahaan way xigtaa marka raad raac fiican baa halkaa ka jiri kara. Soomaaliyana dad badan ayaa arkay hadeerna fariisada la soo diray qaar ka mida inuu asaga oo ceeriin ayaan arkay. waa jiraan dhagax badan ayaan xogtooda hadda hayaa oo aad u badan. inta markaan ka imaado waxyaalaha loo isticmaalo oo iska taqaanaan waa dahabka, jawlariga, isqurxinada kale iyo macdan baarista maadooyinka loo isticmaalo. qalabka wax lagu baaro iyo waa lagu dari karaa. marka shaqooyin noocaas u qabtaa dadaalkaas waa dadaal laga gaari karo heer haddii aad u sii baadhid ama u sii ogaatid. waan ku sii soconaynaa xogaheena. qiimihiisu wuxuu ku xiran yahay dherer, cabir, midab, waxyaalo badan buu ku xiran yahay. dhagaxda ugu fiican amethyst-ga waxay gaari karaan boqolaal ama kumaan dollar ilaa kun iyo dhowr kun oo dollar wixii kasii badan bay mararka qaar gaari karaan. waana dhagax inta badan aan dadku wada helin laakiin dhagaxda la helo oo si fiican loo helo ka mid ah. waxaan galaynaa dhagaxa aquamarine. aquamarine horta markii la yiraahdo waa dhagax qaaliya. waa dhagax ka tirsan dhagaxda qaaliga ah ee qiimaha sare leh. wuxuu ka tirsan yahay gaar ahaan bahda bayral. inta badan dhagaxan dadka qaarkii waxay yiraahdaan magaciisu wuxuu ka yimid Laatiini, luqadaha Laatiinka ah. waxaana laga wadaa magacan aquamarine biyaha badda. waxa uu soo egyahay biyaha badda sidaasaa magaciisu ku yimid. inta badanna waa la isticmaalaa caalamka. shaqooyinka loo isticmaalana waa kuwan hore u soo sheegnay. inta badan bahda isqurxinta iyo ishagaajinta ayuu ka tirsan yahay. qofka saana uu ku ogyahay midabkiisu inta badan waa buluug khafiif ah ama waa buluug cagaar leh. caan ku yahay qofka sana uu daraasayn karaa hadduu sii eego. dhagaxana wuxuu ka kooban yahay beryllium, aluminum, silicate oo ah macdano iyo biro dunida ka jira. wadanada laga helo waxaa ka mid ah wadankan aan horey u soo sheegay sida Brazil, Madagascar, Pakistan iyo wadano kale oo badan oo Africa ah. sababta aan isugu soo doorayna waxa weeye mararka qaar meelo ay isaga dhow yihiin oo dad badan ay ka heli karaan ayaa jira oo laga raadin karo.
marka maadaama ay dhulka meelaha qaar isaga dhowaadaan waa sababta aan u dooray oo aan idinku soo gudbinayo xogtaan. laakiin haddii kale ma soo dooreen mana soo gudbiyeen oo isma dhowaadeen dee, laakiin daris bay noqdeen sababtu wataas. inta badan dhagaxan faraantiyada iyo silsiladaha iyo loo isticmaalo iyo jawlariyada kale waa wax ka qaalisan dhagaxa horey aan u soo sheegnay oo mar walba isuma ay dhowo aad buu uga qaalisan yahay ugana qiimo badan yahay. hadda sida aad aragtid midabkaasi laftirkiisa soo jiidasa leh oo adiga qalbigaaga ahaanan kara. marka mar walba oo aad wax ogaatid waa mar walba oo aad wax heshid. anigu marka waxaan idinla wadaagayaa halkan horta macdanta qalabka lagu baaro nooc kasta uu yahay. haddii aad soo dalbatid aan ka wada heshiino waan kuu dalbi karaa. haddaad Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Ethiopia iyo intaan ilaa Kenya inta haddaad joogtid caalamka qalabka waan kaaga dalbi karaa waana kuu keeni karaa. haddaa xataa caalam kale joogtid qalabyada waan kuu dalbi karaa gurigaagana automatically lagugu keeni karaa. taas waan kuu fududayn karaa. qaybtii macdan baarista ee dhagxaanta iyo waa iyadana waa jirtaa oo iyadana dhagaxa sawir lagu baarayo. sawir aad soo dirsanaysid qiimo yar oo lagu baarista lagu gudbiyana aad soo dirsanaysid lagu baarayo. buuggii macdanta waa jira oo hore oo 58 aan hore u soo gudbiyey mar badan. waxaa intaa dheer oo isaguna jira qaybtiis diiwaangelintii dadkii ardayda ahaa iyo qaar aanu tala wadaag iyo shaqo wadaag noqon karno oo ayaguna la ogol yahay baa jira. waxaan marka diyaarinay website-keena daaraan.net oo linkigiisu dadka cusub u soo dhacayo ee nala soo xiriira. marka xogtaan waxaa idinla wadaagaan Cabdullaahi Saciid Sheekh Xasan barnaamijka subscribe-tiisa iyo like-tiisa iyo share-tiisa waa idinka codsanayaa. waa mahadsantihiin. soo dhawaada.